ugu horeyn Mr. Cabdilaahi ayaa waxa uu xusay isagoo ka hadlayay ururka uu sheegay inay ku dhawaaqayaan in uu xaq aasaasiya dastuurka Soomaaliland u siiyay islamarkaasina qodobo tiro badan oo ka hadlaya ay jiraan in muwaadinka wax ka hor joogsan kara in uu urur siyaasi samaysto aanay jirin taasina ay ku caddahay dastuurka qaranka iyo xeerka doorashada dowladaha hoose siyaasi awgeed cidna u daba fadhiisan mayno kamana maagayno annaga iyo cid kasta oo doontaba in ay urur siyaasi samaystaan taasi oo ujeedadiisu ay tahay in ay markaasi heer xisbi ay u gudbaan tartanada ugu horeeya ee dowladaha hoosena ay kaga qayb galaan dhinaca kalena waxa uu si adag u cambaariyay gudoomiyaha xisbiga ucid Faysal Cali Waraabe oo uu sheegay in uu Faysal isaga waa Cabdilaahi uu kelmado aslagaado iyo cambaarayn shakhsiya u soo jeediyay taasi oo aanay waxba ka jirin buu balse ay tahay mid uu ugu masabidayo waxaaba ka jirta buu yidhi in qaladaad badan oo Faysal doorashooyinkii hore la soo dhaafay uu ka galay aan indhaha ka qarsanay ayaa yidhi iyadoo xisbigiisuna aanu soo baxeen buu yidhi haddii si cadoo sharciya loola xisaabtami lahaa isagoo arrintaasi kasii hadlayana wuxuu yidhi دبل فوتي بقى نقول بدنا كشوبش متكلين دبل فوتي لفتي سفايسة بقى صباحي مركب ورده هاي دبل فوتي بقى صباحي دبع سنان كوميشو قعدونا دليلا إذا كانوا دبع سنينو دوانو كمان وين ماشي مو يمديني ولا يدون يمدين هدي عن استرنت الأول سامتم وايو أنا واحد نقول زمران وردونا صار لو ترتوي يعني لما ميلوضي وحوي كشوبشي كده يسلح لي هاي بس لما لا تجمو waxaan nidhi aan iska dayno waa dowlad hoose waa ugu soo baxay isagu markaa dowladda hoose rag kale ku soo bixila muu arkeen runtii waa ilduuf aanu ilduufnay sir baanayno ahayd maanta se waan sheegay qaladkaanu samaynay waxay babaana aanu iska fikiri madaxweynaha loogu tasabay lagu soo baxay ab xisbaa ku dhalanaya war waa dowlad hoose iyagu ma tartamaya bal waxyaalaha qaarkood inta dalku ceeb soo jiiraan ka gaabsano waxa kale oo uu sheegay in doorashada ugu dambeysay ee baarlamaanka Soomaaliland saddex musharax oo Faysal iyo xisbigiisa loo diiday inay tartanka ay uga qayb galaan in anagu gaar ahaan anigu shakhsi ahaan aan ku guntaday buudi sidina ay tartanka uga qayb galeen uguna soo baxeen anigoo taana u sameynayay buudi iyada oo labada xisbi ee kale ee udiga kulmi ay ahaayeen xisbiyo waaweyn oo awood badan balse ucid ay ahayd buudi mid liidatay oo daawaha ku hortaysay سياسي أو جدنا أنا واحد من الناس لا ده أسمى نبودي بس فيصل أنا سياسي جريني أو بالمريض وهذا الزاوية الورقي أو قومني